qarax ay ku geeriyoodeen 3 askari oo Itoobiyaan ah 8 kalena ay ku dhaawacmeen ayaa ka dhacay degmada Waajid ee gobolka Bokool waxaana wararku ay sheegayaan in halkaas qasaare kala duwan uu ka soo gaaray ciidamadaasi xogta la helayo ayaa tilmaamaysa in ciidamadan oo ka yimid qayb ka mid ah magaaladaasi ayaa ku sii jeeday garoonka diyaaradaha ee degmada Waajid ee gobolkaasi waxaana la tilmaamayaa in qarax miino oo ka mid ahaa qaraxyada inta badan halkaas la geliya uu ku qarxay sidoo kalena dhaawacyo culus ay ka soo gaareen waxaana dab uu qabsaday gaari weyn oo dadka ay u yaqaanaan uuraal kana mid ah gaadiidka waaweyn ee uu ku rakiban yihiin hubka noocyadiisa kala duwan waxaana sidoo kale la sheegay markii uu qarax dhacay kadib rasaas kooban ay rideen ciidamadii Itoobiyaanka ahaa ee ku sii jeeday garoonka diyaaradaha ee degmada Waajid ee gobolka Bokool iyadoo halkaas dadkii deganaa qaybtooda ay soo wajahday cabsi xoogan laakiin rasaastii ay rideen wax dhibaato aysan ka dhalan wararka ayaa sheegaya in qaraxa markii uu dhacay kadib ay geeriyoodeen ilaa iyo 3 askari halka wararka qaarna ay sheegayaan in 4 askari ay yihiin askarta geeriyootay waxaana sidoo kale uu dhaawac culus soo gaaray qayb ka mid ah askartii qaraxaasi miino lala eegtay ilaa iyo tiro dhan 8 askari ayaana la sheegay inay ku dhaawacmeen waxaana ciidamadii Itoobiyaanka ah ee ku sii jeeday garoonka diyaaradaha ee degmada Waajid ay sii wateen socdaalkooda iyadoona inta badan degmadaas ay ku soo noqnoqdeen qaraxyada iyo dilalka gaarka ah ee loo geysto dadka waxgalka ah iyo sidoo kale saraakiisha ka tirsan ciidamada koonfur galbeed ee ku sugan gudaha degmadaasi ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada Itoobiyaanka ah iyo kan maamulka degmada Waajid iyo laamaha ammaanka maamulka koonfur galbeed oo ay kaga hadlayaan qaraxan miino ee goordhow lala eegtay ciidamadan Itoobiyaanka ah ee ku sii jeeday garoonka diyaaradaha ee degmada Waajid ee gobolkaasi